Burburinta iyo barakicinta dhulalka danyarta magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waa mid mar kasta la koosata kaltiriska xukunka madaxweynaha talada dalka haya ee Dr. Xasan Sheekh Maxamuud. Walow boosas badan oo ku yaala gudaha caasimadda Muqdisho ayna degganaayeen dad shacab ah cagta la mariyey, iyadoo oo loo aanaynayo in aysan si sharci ah ku joogin oo ay yihiin deegaan dhuleed ay leeyihiin hay'adaha kala duwan ee dowliga ah. Haddana waxaa lagu eedeeyaa madaxda dowladdu in ay dhulalkaasi u gacan geliyaan ganacsato si ay uga sameeyaan malaayiin lacago ah. Waxaana arrinkaasi si cara leh uga hadlay saamileyda mucaaradka oo iskugu jira mas'uuliyiin horey uga soo muuqday kuraasta sarsare ee dalka iyo madaxyaweynta muhiimka ka ah miisaanka siyaasadda Soomaaliya. Madaxweynihii hore ee dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo maqaal gaaban ku soo xardhay boggiisa Facebook ayaa yidhi dhibaatada ka dhalatay cadaalad darrada iyo ku takrifalka awoodaha dowladda ee maamulka iyo maaraynta khayraadka bulshada gaar ahaan dhulalka danta guud keliya ma uusan saamayn habnololeedka qoysaska danyarta ah ee magaalada Muqdisho ee waxa uu sidoo kale dhaawac weyn u geystay kalsoonida dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku qabaan dalkooda. Waxaa nasiib darro ah in dowladdu ay dayacday waajibaadkeedii loo igmaday oo ay ka mid tahay yaraynta shaqo la'aanta iyo abuurista fursadaha, iyadoo taa beddelkeeda la burburiyey goobo ganacsi oo ay shaqaale ka ahaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed iyaguna ay maalgashadeen. Waxaan maalin walba daawanaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka tahriibaya dalkooda iyaga oo sheegaya in ay raadinayaan fursado iyo rajo. Waxay taasi meel ka dhac ku tahay qof walba oo mas'uul ka ah iyo nidaamka dowladnimada oo ku dhisan adeeg iyo daryeel bulsho. Waxaan soo jeedinayaa madaxda maanta talada haysa in ay dhalinyarada Soomaaliyeed il gaar ah lagu fiiriyo, la siiyo kalsooni ay dalkooda ku maalgashan karaan, isla markaana lagu dhiirigeliyo abuurista shaqooyinka iyada oo loo fududeynayo habraacyada dowladeed ee lagama maarmaanka ah.